من بين الأنام أحمده على نعمه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله، لقد اختصكم الله بيوم عظيم وموسم كريم يتكرر عليكم كل أسبوع قد ضلت عنه الأمم قبلكم وهداكم الله له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله فيكم. موضوع maanta ee khudabkeenu wuxuu ku saabsanaan doonaa waxyaabaha uu la gaarka yahay maalinta jimcuhu ama lixda maalmood kale ee jimcuhu muxuu kaga duwan yahay muxuu kaga duwanaanay. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku gaar yeelay ummadan maalintan oo toddobaadkii walba marina soo marta. waxa uu sheegay rasuulku salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi anba uu yiri نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. حديث كان قصة في الصحيحين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمدها ومدي وجدا بيسوا innaga ana ugu horeyn doona maalinta qiyaamaha. ummadda ugu horeysaana innaga ay noqon doontaa ummadda ugu dambeysayna dawaynu nahay. inkastoo ay jirto in innaga horteen iyaga la siiyay kitaabka. maalinta jimcaha Ilaahay ku farad yeelay dabadeed iyagu way qaadan waayeen. dadku innagayna daba taagan yihiin oo sida jimcuhu uga soo horeeyo sabtida iyo axadaba ayaa ummadana ay ugu horeysaa ummadaha kale. waayo yuhuuddu sabtidoo kale weyneynayaan, kiristaankuna axadda ayay weyneynayaan. xadiid kale ku jira fi jaamici tirmidiyi min xadiidi abi hurayra rasuulku wuxuu sheegay salawaatu Allaahi wa salaamu calayhi maalin ay qorraxi soo baxdo waxa ugu khayr badan maalinta jumcaha. khayru yawmin طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ورسولك وحشي صلوات الله والسلام عليه مالين أما مالنتا مالما وقفضلق بضاني إلي تهي مالنتا جمعة ومالنتو إلهي أبوري نبي الله آدم شنذا وقليي كذبنا لغا سو ساري مركي إبليسك وفتنيي قيامه روح دعيا أون مالن جمعة أيو دعيا. وما maalin jimcaha u dhacayo de waxa waajib ah qofka muslimka inuu taxadaro islaalin badan aad sameeyso. laakiin waxa laga yaabaa adigu adoo iska waalaysanaya amba jaflaysanaya in qiyaamuhu inoogu dhacada. haddaba dhaqankii nabiga waxa ahaa salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi inuu weyneeyo maalintan weyn. waxaana maalintani ay la gaar ahayd cibaadaad khaasiyada u ah. tusaale ahaan salaada subax ee maalinta jimcaha rasuulku wuxuu akhriyi jiray salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi inta badan alif laam mim tanziil iyo ahlata ala al-insaan. waxaan u akhriyi jiray labadaas suuradood inta badan waxay ka waramayaan wax hore u dhacay iyo wax dhici doonaba. xataa waxay ka waramayaan abuuritaankii aadam iyo qiyaamaha dhicitaankiisaba iyo addoommada kulminta la kulmin doono maalinta qiyaamaha. oo qiyaamaha laftigiisu maalinta jimcaha ayuu dhacay. marka akhriga rasuulku akhriyi jiray salaada subax labadaas suuradood wuxuu ummadda xasuusinaya waxyaabaha iman doona ee soo socday aad u waaweyn ee aadka u culus. wuxuu akhriyay rasuulku salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi si loogu diyaar garoobo ayuu u akhriyay. ومن خصائص هذا اليوم استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته لأن كل خير نالت هذه الأمة في هذا اليوم وفي غيره من خير الدنيا والآخرة
فإنما نالته على يد هذا النبي الكريم. وأيو مالتان جمعها يا هبيك إذا بوحي تهاي لبضيو صلى رسولك صلوات الله والسلام عليه. الصوت روحي تهاي أمضني وحي كوب فائدي أنباء الليبان تكوه الشيء وحي هيد رسولك. marka waxa haboon in rasuulka salligiisa la badiyo salawaatullaahi wasalaamu alayhi loona badiyo de si sharci ah inaad ugu salido rasuulku sidii isugu salliyi jiray salawaatullaahi wasalaamu alayhi markii la weydiiyay sidoo faray ummadu inay ugu salido ma aha adigu sida doonto inaad ma aragtay aad ka yeesho amba kitaabka doonto aad akhrido oo habeen quraynta wax mawlid leeyahay aad sii deyso hadana toddobaadka kaleba amba inta kaleba aad iska ma aragtay wax haboon maaha وحابها مالنتني لا غاركا تahay waxa kamida الاغتسال والتنظيف والتضيب والسواك انا قفكو inuu maalintan mustahab aba waajib ah la yiraahdo waa in qofku uu maydho isnadiifiyo udgoonaysto cadayga isticmaalo mariyahiisa inta ugu ladan uu heli karo waa inaad xidhato weeye waayo waa maalin ay muslimiintu ay kulmayaan waana ciida wiil asbuuc walba dhacaysa amba ciid toddobaad walba inoo imanaysa weeye saadarteed qofka muslimka waxa haboon xaalad wanaagsan inuu ku sugnaado oo maalintan aad weynayso adiga oo ku camal falaya sunnihi nabiga salawaatullaahi wasalaamu alayhi. ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير بالذهاب للصلاة الجمعة ماشيا إن أمكن فإن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها. وحنا هباوس قور هرين اعتماد الصلاة الجمعة قور هرين اعتماد المساجد قور صوف فريسته ولما أحدث صولو وين كرتو إن الصولو ويسو وآية اللابات قادمة أجر بات كهيرسة أجر آيات كهري دونتا سيدا ورنا يا إمام أحمد رحمه الله تعالى بالسند الصحيح يا ابن خصيمة والصحيحين يا رسول كيوني صلوات الله والسلام عليه من غزل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة أو بكل خطوة يخطوها صيام السنة وقيامها وذلك على الله يسير. معنى قفك هدي وميرده ونميرده سوك الله صلاة جمعها إمامك كسو دواده آمصه طلابدي ولو سوق عذيبه وحكوه لي أجرك سند عبادة قفك وسميني أما قيامك هبيك وتكذي إلهنا وحفظ يا أرنتاس فما أعظم هذا الأجر فما أعظم هذا الأجر يا عباد الله. وأجر المصير والتبكير إلى الجمعة طلابدي ولما تعادل في الثواب صيام سنة وقيامها وطلابدي ولما السنة ضن عبادات سميني سي أجر كذا أي لنسى. أضف إلى ذلك أن المبكر إذا دخل المسجد فاشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن حصل على خيرات كثيرة والملائكة تستغفر له طيلة بقائه في المسجد ويكتب له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة. هذا قفك بركو ساكا اللي هو مساجد اسكا فريسته قرآن وحو قرانا يا أخرسته اسكتو كذو إلهي بريحصه خير فربدن بوهليا ملائكتنا إلهي دمدافع ويدينيسا إلا الله انتا صلاة وكترنا وحو كردقان يهي قف صلاة كتر أو كلا أجرك قف صلاة كنا يوكلا أيهلي لكن حليانا ضمبين ما هسلموني. وكثير من الناس زهد في هذا الأجر في هذا الزمان فصار لا يأتي لصلاة الجمعة إلا في آخر اللحظة وهذا حرمان وتثبيض من الشيطان فاتقوا الله ولا تحرموا أنفسكم هذا الثواب العظيم. بكروا إلى الجمعة لتحوسوا هذا الثواب. أنا غفوا إنك الله حله رأوي ماده ويا الشيطان كلك تيدي تشيدي ما أنت ودوا حلقيها وأنت اللحد يقول يا كسوك عضي إن أسكفر لذين بقاحيها يدر بيدا كما صوبحي كما هري كما لرهيبيا كما وانكا كما توغا والذي يدي أين كنت غير بشر لما تردن والذي بتصي وطا وحكوه ناكسن إن أتكتوا بدكنتو ذنوب فربضان بعد عضي معاصي فربضان باتمي
waajib bay kugu ahayd inaad dareento khaladaadkaad samaysay waxa laga yaabaa saad kuyuga ugu jirtay inaanad salaadba tukanin way dhacday in badan waxa la sheegay goobaha qaarkood oo masaajida ku dhow askarta ilaalinaysa lafteedu inay dadka lahaayeen waar ordo tukan oo deetaba jirto bal ninka Allahu akbarti hayya ala as-salah hayya ala as-salah hayya ala as-salah halumu ila as-salah ana salada kaaleewi salada kaaleeya war u kaaleeya liibaanida xaga kalena waxa laga leeyahay talaayay hebel amba xisbi hebel baa sharaxan marka laba dhawaaq buu maqlaya dhawaaqii ugu yeedhay xagga Ilaahay inuu masaajidka soo galo iyo dhawaaqii ugu yeedhay inuu footeeyo in badan oo muslimiinta kamid maalintii dhawayto dhawaaqa Ilaahay may maqlaynin laakiin waxay maqlayeen dhawaaqa shaytaanka waxay maqlayeen waxaanay garanaynin wuxuu yahay ayay ku daalayeen waxa uu haboon in Ilaahay uga toobad keenaan dadka ay salaadu kaga tageen jamac dadka ikhtilaadka sameeyay ragga iyo dumarka sidii jin Abdullaanka dabada la isugu xiray sidii Abdullaanka ma arag jin Abdullaan baad moodis nin iyana miya la rasaynay xaraas bay daba baahnaa sooma sallallahu alayhi wa sallam wala Allah laga baqo waxaas baqa xoog leeyahay waa fitan sharkeeda iska badan tadabataran aan leeyahay ummadii hadii ay gasho waxaan shaqo ku lahayn waxa kaga soo baxa waxaan hadiye jiraale aan la mahadin ciribta dambe ayaa kaga soo baxa hal shay oo idinku kuntada waxa ku dadaashaan oo ina nabadgelyadiina ilaashata nabadgelyadiina ilaashada kii dhacaya ha dhaco kii soo baxaya ha soo baxo waxay idinka dani idinku tirtaa nabadda hadaa nabadgelyadiina ilaashan weydaan oo aad buuqdaan oo aad garanayso wixii la sameyn jiray waxaad ogaan doontaan in farta dhexda laga qaniini doono inuu leeyahay akhyaaro xafada ay sheekeynayay meel ka yimi wuxuu sheegay ragga ugu ladan muqdisho kale inaanay guryahooda seexan guryahooda wallahi ma seexdaan guryahooda aqaladooda ma seexdaan ninka waxa haysta gurigiisa uma hoydo ninkaasa garanaya de nabadu waxay tahay aqalkiisu u hoyan waay kaasa garanaya laakiin adigoo gagadheerta iska seexda oo dahabka iyo dollarkuba dibadda ku wareeyay waxa doonto ku ciyaaraysa ku ciyaartay halkaas seexanayd baa la doonaya markaa isaga gaal baaba ilaaliya adoonsan waaweyn baaba ilaalisaba adiga yaa ku ilaalin doona war ilaasho nabadaada ilaasho nabadgelyadiina ilaashada marka dhimataan qof waliba markuu dhinto xabaashiisa la gabagabeeyo way idinka arkay ila muslimiin baynu lahay min aqiidatina waxa kamid qofka in la weydiin doono waxa la weydiin doona rabbigu caabudayay iyo diinta uu haystay iyo rasuulka uu rumaysnaa salawaatu wa salaamu alayhi wa qabriga marka lagu galiyo ma ogtahay wallahi inaan ilaahay ku oranaynin ma u cid baadahay ma wadani baadahay ma kulmiyaadahay ma rays baadahay iyo waxaan kale faraha badan iyo xaqsoor iyo wax la mid ah waxa lagu weydiin maayo waxa lagu weydiinayaa ma rabbuk cibaadada adoogad waxa dhacay Allah loo toobad keeno rag badan baa faraha la galay war hooy rabbi u nool ilaahay looga toobad keeno waxaan wax faa'iido ma laha dadkii foodadka joogi jiray way garanayaan qabiiladu bay noolaynayaan reer waliba gudihiisa isaga iska qabsanay kowla jaarka yahayna uu qabsanay waxa idin muhiima allana u toobad keena cibaadaysta ilaahay maqla subhanahu wa ta'ala waxana waxba idinka meegelin qofna adiga dhinaca ku gelinaayo qofna adiga dhinaca ku gelinaayo qofna ku gelinaayo khasaayista waxyaabaha uu la gaarka yahay maalinta jimcuhu waxa kamida waxa de maalintani khudbada ay leedahay loola jeedo in ilaahay lagu amaano subhanahu wa ta'ala ilaahay kalimadiisa lagu qiro nabinimada rasuulka loo qiro rasuulnimada salawaatullaahi wa salaamu alayhi inagu ay iswaanino waxyaabaha dhacaya iyo si looga taxadaro ilaahay ciqaabkiisa min ba'sihi wa niqmatihi in dadka loo sheego wixii alla u dhaweynaya in laga reebo waxa ilaahay cad gelinaya subhanahu wa ta'ala فالخطبة شرط من شروط صحة الجمعة
haddaan salaada jumca khudbada aan ilahayn salaadu ma ansaxayso salaad jumca bila khudbada aynu tukanna haddaynu dhaaro salaad ansaxayso ma aha waana xuduurkeeduna waa aad buu maaragtay waa mutaakid waliba dadka musalliinta wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun fi qur'aanka la akhriyo ilaahu subhanahu wa ta'ala dhageysta oo aamusa si la idinku naxariisto soo tilmaamaya ibn kathir rahimahullahu ta'ala عن سعيد بن جبير الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام في الصلاة وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي الجمعة وإن نقرأ حلقات الغفرة يا مارك إن هذا مصطه ماركيسا وإن أدلغوا إسكايل عرصه انت خطبه الجمعه سعوته حتى تصبيحنا لما اوغلا تصبح انad ku mashquulayso iyo dhulka inaad masaxdo iyo garkaaga inaad taamso iyo saacadaada inaad eegto iyo mobilkaaga inaad waxa soo dhan wax loo goliyay maaha mamnuuc weeye qof waa inuu iska ilaaliyo wa talab al-insat khalf al-imam wa hal khutbah khutbada ay dhageysigeeduna waa waajib weeye wa man lam yunsit kana laghiyan wa man laga fala jum'ata lahu فحضور الجمعة واستماعها والإنصات لها أمر مقصود للشارع فإن فيها تذكيرا للمستمع وتعليما للجاهل وموعدة للغافل وكذلك أقول لك السنة وحالك وحصي ولقوانينيا كيا وحقوم وحبال بريا كده مقن موقنا ولا براروتشينيا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون حتى مر آذان كي دنبه حتى لا دميي واحد وغانيسا وحيبنتا يا وحيبسبو لبدو بينو حرامي هي اياد وغانيسا بارك الله فيكم ما انت جمعوا الى علم بدن بينو غباهان tahay ahkaam fara badan oo maalintan ay leedahay ayaa waxaynu kaga suganahay in badan oo inaga mid jahli in badan oo inaga midina way iska fudaysanayna aqulu hada alqawla wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر الله المأمور بالسعي إليه هو الخطبة والصلاة وخطبة هي صلاة وكلا إليه هيتقع سيادراديد قفكم مركو جمعاي يماده وإنو سوچيدو وإنو خطبة السيحبون ودقيستوي وإن هذا عيار إيا مشغولد وإن عناد بلامين تذكر قاركود إن بدن باويسكو هسنية قد غلب عليهم الكسل أو عدم المبالاة فلا يأتون إلى المسجد إلا بعد انقضاء الخطبة أو فوات معظمها فيفوتهم الثواب وتفوتهم الفائدة وهذا حرمان عظيم طب iska soo joogaya maanta oo iska sheekeynaya wali ma la adimay buu oranaya wali ma la adimay waa ka ugu fiican hadana wuxuu oranaya ma la aqimay iska sii fadhiyay waxa uu wado bal wuxuu faa'iido ka helayo واعلموا يا عباد الله أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجوز له الجلوس حتى يصلي ركعتين خفيفتين هذا خطبة سعوة مساجك أصوغ الشهر فريسان تكون لما ركعتين وفضل تكون وأي رسولك وحده صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين متفق عليه زاد مسلم وليوجز فيهما أي وليخفف فيهما لما ركعتين دقدقة أياد سكتو كان الساعة دقدقة ولما تشهدوا إنه صلاة ماشي كالساعة هذا صلاة الجمعة ومن آكد الفرائض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين ومن تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه قفك عدو فضيصده أما قرصده صلاة الجمعة إلهي قلبي يسدبوني صدع 20 سرعة سادة كتكتو قلبك وفتح علي سنة ومن صلاها وحافظ عليها كفرت عنه من الذنوب الصغائر ما بينها وبين الجمعة حتى ذنوب تيرون بالغ دافيا ذنوب تواوين كبائرتها إلهي بالله توبت كينا سبحانه وتعالى إلهي بالله توبت كينا
ومن خصائص يوم الجمعة أنه لا يجوز سفر في يومها لمن تلزمه قبل فعلها بعد دخول وقتها في سوال الشمس. مرة قرحت بهذا يقعدوا حلقة صلاة الجمعة قفكم ما صفر كره هذه صلاة الجمعة ذاتك واجب كنت هاي ذاتك واجب كنت هاي دوار رج وإنه دقي هاي وإنه مقيم هاي وإنه عفيوي هاي وإنه مسافر هاي لكن دمر كايو دقفك بكايو يجا واجبكم معها مركا ما صفر كرتيد إلى صلاة الجمعة تكته لكن أنت قرحت قبل السوال برقادة ما صفر كراه وسك صفر كراه إنك سوى علماء قال كراه كنت الماميان ولما هدوسيه لكرام مردحة وكسر تكدوش معها مردحة وحن ولا شيء ده مساجد كوي على طريق وده جمع على قلت كده وأيضاً مرة ده مسافرين جمع ما تكل كراه وحن شيء ده جمع ما تكنيان جمع وحلا إلى هذا مسافرين ما تكذا هذا كوح وهذا يسكر عذان وتلا هذا إنه قبلنا حرق إياه ما ملا دايت إنه قوي جمعة إنه يقول الصحمها كما سمعنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه سوا بحي وسفروا بحي إنه الصحابة تكيي جمعة واحترام معها. ثم اعلموا أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فليضيف إليها ركعة أخرى وقد تمت جمعته ومن أدركها أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة فيدخل مع الإمام بنية الظهر ويصلي 4 ركعات. الكنا وأرين مهمة هذه صلاة الجمعة ولا قلت رأت تماطه إيضا ركعة دي هورين للتكذي ركعة اللباد إمامك يدعو تاغيه هداد سوق قادو ركعة اللباد وأنا ولي الركوعين هداد سوق قادو وادكو حيدان إيساء وركعة دي كليه دنبون بدلا إيمان إيساء لكن هدادو تمادو إمامك يسوق الركوع دي كسو توسي أما التحيات كيف فرديا ركعة دي ودن بيسايا جمعها واحد حيدانaysa salaad duhur waxaad niyeysanaysaa salaadii duhur baad niyeysanaysaa imaamka ayaanad ku xidhanaysaa salaad jimciye kuma jirto mar hadii inta ku soo gaadhay ay ragcad ka yartay ragcadii labaad waa imaamku rukuucdi ka soo kacay atayuu maaragtay uu sujuuday sujuudi baad ku soo gaadhay amba tahiyaadkii u dambeeyay ku soo gaadhay waxaad xidhanaysaa jimco maaha waxaad niyeysanaysaa salaad duhur baad niyeysanaysaa imaamkana waad ku xidhanaysaa dabadeed afartaadii ragcadood ayaad dhamaystiranaysaa masaajidka markaad timaado iyadoo masaajidka seen loogu tiro halka kugu soo horeysa iska fadhiiso fala yajuusu lahu an yatakhadda riqab an-nas ma hadadka inaad soo dul dhexmarto dadka qaar kood baa isagoo kabihiisa sita ayuu kan ka soo talaabsanaya ayuu kan ka soo talaabsanaya oo soo soconaya qalad weeye ari sharcan banaana maaha waayo rasuulku sallallahu alayhi wa sallam alayhi ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala al-minbari rajulan yatakhadda riqab an-nas wa harkan dadka jiray oo ka talaabsanaya faqala lahu ijlis faqad aadayta fariiso dadka waa dhibtay adiya iyo dhibaato la timiye ولا يجوز له أن يحجز مكانا في المسجد ويحرم الناس منه إلا من عرض له عارض فقام ثم عاد قريبا تلك قاربة وحيسك سمينيا برقدوا هلك السجايات سكدقانيا تسوقوا تقي وارد البوب بوصاروا لهين بو هايستا قف هدي وهلكن isagoo fadhiyay oo deetaalkii isagoo fadhiya uu sidaa soo weysay مثلا amba uu weysa jabay amba ari yaro dana u timo markiiba ku soo noqonayo amba telefoonku ku hadal isuul dibadda ula baxay waxa uu sii dhigan kara laakiin inta halkan iska sii goosato oo dasi calaamadsato inaad suuqa tagto amba tiraahdo hebel oo isi qaba meel saaxiib kale ku sii jeegay ku sii qabto waa dhulboob weeye manaha boona ma ogtahay marka halis weeye ويتنفل قبل صلاة الجمعة بما شاء من الصلاة صلاة الجمعة انت la gelin wixii aad doonto sunnada la iimaanaysa ila imaamku soo galo laakiin sunna raatiba oo tadhurka kala ah oo qabla salaat الجمعة la tukada ma jirto salaad sunna ah oo jumcuhu leeyahay oo marka aadaanka hore la adimo la tukanaya ma jirto wax soo arooray maaha waayo aadaankan hore laftigiisa waxa laga adimi jiray ahdigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi suuqa daaru zawra suuqa meel ku taala laga adimi jiray si dadka loo xasuusiyo oo aanay suuqa ugu maaragtay waqtigii Uthman radiyallahu anhu ayuu soo galiyay masaajidka waa iska shay xaqa waa sunnatu sahabi al-jalil aba sunnatu al-khalifa ar-rashid
oo lama maartay ilqayn karo laakiin wax sunna oo marka sunna salaada aadaanka hore la adima uu leeyahay ma jirto weeye laakiin inta ka horeysa qadarka doonto sunna mudlaqa waad iska tukanaysaa sunna mudlaqa waad tukanaysaa ومركا وحي كدنبيه واقل سنه الراتب بعد الجمعه لبا ركعات جمعه دبدي وتكرتا اكثر كيدنا افرنا ولا غارسين كرا انكسو علماء غريغا iyo masaajidka ay u kala qaadaan wala ratibata laha qablaha bal yatanaffalu bima yasha اللهم اصلنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما صحا ضبغا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضك ما لا نشكو إلا إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والكافرين وأهلك الكفر والكافرين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم وعاف مبتلاهم اللهم اغفر الدين عن المدينين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين فاطم الصلاة